kusoo dhawaada warka kala samee TV qodobadaan idin hayno waxaa kamid ah gaashaanbuur la mid ah midda NATO ee wadamada reer galbeedka iyo waliba quwadaha bahoobay ayaa markan waxaa la qorsheynayaa sidii carabta ay u samaysan lahaayeen isbahaysi kaasi la mid ah cabsida Israa'iil ay arintaasi ka qabto maxay tahay warbixin ayaanu eegi doonaa 22 qofna waxay ku dhinteen baar lagu caawinayo oo ku yaala dalka Koonfur Afrika kadib isbuurasho halkaasi ka dhacday mar kaliya walxa qarxa oo halkaasi laga dhex maqlay qodobada waxaa kaloo ku jiri doona ra'iisul wasaaraha Ciraaq Mustafa Kadimi oo dalka Sacuudiga tagay kulan dhex maray isaga iyo waliba dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudiga Maxamed bin Salman waxyaabaha ay ka wada hadleen maxay ahaayeen maleeshiyada kooxda TPLF ee Tigreega oo arrimo xasaasi ka hadashay markii ugu horeysay muddo kadib isla markaana waxa ay faahfaahin ka bixiyeen xirnaanshiyaha garoonka diyaaradaha magaalada Maqale qodobada waxaa kaloo ku jiri doona taliyaha sirdoonka Iran oo shuruud adag hor dhigay wafdigii ka socday midowga Yurub ee dhawaan gaaray Tehran shirkaas qodobada qaar waa la isku mari waayay warbixin ayaan iyana idin haynaa ugu horeyn haddaad nagu cusub tahay subscribe dheh oo hel dhacdooyinka dalka qaaradda iyo deegaankaagaba muuqaalka like saar oo sii sheergaray haddii aad awooddo waad mahadsan tahay aan ku bilowno gaashaanbuurta NATO waxaa la ogyahay in wadamada reer galbeedka badankood ay ku jiraan isla markaana qaarkood wadamo islaam ah oo ay hogaankooda yihiin kuwo aan la gamban qadiyadooda ayaa qayb ka ah hadda waxaa laga qabanqaabinayaa wadamada carabta in ay samaystaan gaashaanbuur la mid ah midda NATO boqorka dalka Urdun boqor Cabdallah labaad ayaa markii ugu horeysay soo jeediyay in dalalka islaamka ee bariga dhexe iyagu ku yaala ay u soo jeedinayaan in ay samaystaan cududooda oo la xoojiyo isla markaana isbahaysi military oo la mid ah midka gaashaanbuurta NATO ay la yimaadaan boqorka Jordan wuxuu xusay inuu doonayo inuu arko wadamada bariga dhexe ee islaamka oo soo galay isbahaysigaasi military ee isaga soo jeedintiisa u lahaa waxa uu warkan jeediyay isagoo xiran dharka tuutaha militariga lagu yaqaano waxaana laga fasiran karay in hadda uu u tafaxiidanayo sidii uu u mideyn lahaa quwadda ama awoodda ay isticmaalaan dalalka islaamka boqor Cabdallah labaad ee dalka Urdun hogaamiye waxa uu sidoo kale sheegay in wadamada Sacuudiga Imaaraadka iyo Qatar ay ka doonayaan in ay ku soo biiraan si uu yiri ay u muujiyaan awoodda military ee dalalka islaamka boqorka Urdun wuxuu wadamada Carbeed ugu baaqay inay istaageeraan oo ay iscaawiyaan si uu yiri meesha looga saaro awoodaha reer galbeedka oo ku soo xadgudbi kara wadamada islaamka tan waxa ay hadii dhaqan gasho noqonaysa mid ay kaga badbaadayaan dhagaro reer galbeedka ay u maleegaan dalalka carabta ee hogaankooda islaamka yahay iyada oo dad badan ay tallaabadaas u arkaan Urdun boqorkeeda uu soo jeediyay mid u farxad ah wadamada islaamka waa hadii la dhaqan geliyo sida qorshaha uu u soo jeediyay isbahaysiga NATO haddii mid la mid la magacaabo ama la sameeyo oo mid military ah waxa ay dhabarjab ku tahay Israa'iil oo inta badan iyadu doonta mid ay gumaysato wadamada carabta kala qoqobka iyo waliba kala furnaanshiyaha inay ku sameysana aad iyadu u jecel waase ogaan doonaa waxyaabaha ka soo kordhay hindisahan boqortooyada Urdun ay garwadeynka ka tahay ee la leeyahay in isbahaysi military oo midka gaashaanbuurta NATO oo kale ay carabta ka sameeyaan waa hagaag kala samee TV ayaa daawanaysaan qaybaha hore bal markana ugu yaraan 22 qofood ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen kadib markii goob dadka ay ku caawinayeen oo ku taala bariga London ee dalka South Africa ama Koonfur Afrika laga maqlay jugta walxa qarxa in uu gaas ahaa ayaa loo maleynayaa waxyaabaha qarxay iyada oo 26 Juun axadan maanta ahayd oo shilkaasi dhacay wararka waxay sheegayaan in dadka ay isbuurasho sameeyeen ama isdardar 22 kaas qofood ayaana ku geeriyootay sida la ogaaday goobjoogayaashu waxay sheegeen in ay mar kaliya maqleen jugta walxa qarxa iyo waliba uuro meesha isqabsatay maqaaxida ama baarkaas dadku ay ku caawinayeen warbaahin SABC ee dalka Koonfur Afrika laga leeyahay waxay sheegaysaa in gobolka Eastern Cape ay wax ka dhaceen taasi oo muuqaalada ama sawirada la soo bandhigay laga arki karay dadka oo kala cararaya isla markaana miisaska iyo kuraasta goobta taalay ayaa jajabid ku yimid oo burbur uu soo gaaray marka loo eego sida xaaladdu ay ahayd iyo kala cararka
booliska dalka koonfur afrika oo goobta gaaray waxay sheegeen inay hadda baaritaano wadaan waxyaabaha keenay in dadka intaasi leeg ee 22 dhimashada lagu sheegay inay tiradooda gaarayso sidoo kalena dad dhaawacyo ay soo gaareen oo cisbitaalka qaarkood la geeyey ay baaritaano ku hayaan waxyaabaha sababay. koonfur afrika ayaa ka mid ah wadamada dadka ay waqtiga dambe ku gaaraan inay ku caweeyaan baararka ama maqaaxiyadaha dadka isugu yimaadaan waxaana wadankan uu ka mid yahay wadamada Afrika ee aadka looga isticmaalo qamrada ama alkoolada dadku ay cabaan. waa hagaag bal markana ra'iisul wasaaraha wadanka Ciraaq Mustafa al-Kadhimi ayaa umra ahaan wuxuu u tagay magaalada Makka ee dalka Sacuudi Carabiya wuxuu la kulmay boqorka dalka Sacuudiga dhaxal sugaheeda ninka la yiraahdo Mohammed bin Salman. kulanka waxa uu ka dhacay magaalada Jidda waxaana ra'iisul wasaare Mustafa al-Kadhimi uu socdaalkiisa wadanka Sacuudiga oo shalay Sabtidii soo bilowday la leeyahay wuxuu uga gudbi doonaa maanta dalka Iran. magaalada Tehran ayaana uu ku wajahan yahay sida qorshaha uu yahay halkaas uu kula kulmi doono madaxweynaha wadanka Iran Ibrahim Raisi. ninkan shiicada ah ee dalka Ciraaq ra'iisul wasaaraha ka ah ee la yiraahdo Mustafa al-Kadhimi ayaa dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudiga Mohammed bin Salman waxa uu kala hadlay 5 waxyaabood oo la leeyahay in xukuumadaha Riyadh iyo waliba Baghdad ay iska caawiyaan taasi oo ay ugu horeyso xiriirka labada dal oo la wanaajiyo wax wada qabsiga arrimaha ganacsiga sugidda amniga iyo waliba arrimaha la xiriira isgaarsiinta iyo horumarkeeda. xukuumadaha Riyadh iyo Tehran ayaa sidoo kale iyagu hadda u muuqanaya mid aan isku wanaagsanayn qaab ahaan taasi oo sidoo kale ra'iisul wasaaraha Ciraaq dhaxal sugaha boqortooyada uu kala hadlay sidii isbedel looga keeni lahaa arrinta ku aadan qorshaha in wax laga bedelo ee labada dawladood dhex taalla. dhinaca kale arrimaha Iran ayaan ku guda jirnay taliyaha ugu sareeya sirdoonka dalka Iran Ali Shamkhani ayaa waxa uu ka hadlay kulan Sabtidii uu kula yeeshay magaalada Tehran madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee midowga Yurub ninka la yiraahdo Joseph Borrell. wafdiga midowga Yurub ayaa waxa ay maalmahan ku sugnaayeen magaalada Tehran ee caasimadda dalka Iran. Shamkhani waxa uu sheegay in ay ku xadgudubka Mareykanka uu sameeyay ballanqaadkii iyo waliba ka bixitaanka sharci darrada ah ee heshiiskii nukliyeerka ee Iran 2015 ee Jakabaw la yiraahdo aysan Iiraaniyiintu marnaba ka dhigi doonin mid ay ka jabaan hubka bacriminta nukliyeerka oo ay dalkooda sameeysanayaan iyadoo reer galbeedku ay diidan yihiin oo Mareykanka ugu horeeyay arrintaas. taliyaha sirdoonka ugu sareeyay dalka Iran waxa uu sheegay si buuxda inaan u ilaalinay buu yiri waajibaadkeena hoos yimaada Jakabaw oo waligeen kama tagin miiska wada hadalka laakiin Mareykanka ayaa waxa uu yahay mid aalaaba heshiisyada burburiye. shuruudo ayuu hordhigay wafdiga midowga Yurub ee halkaasi ay kula kulmeen. Shamkhani wuxuu tilmaamay in talaabada Mareykanka ah inuu dib ugu laabto erigiisii wax qabad la'aanta Yurub ee la xiriirta Jakabaw inay tahay waayo aragnimo qaraar oo u soo hoyatay dadka Iran waana mid keentay bay yiraahdeen in ay u bacbacdigaan awoodda ay isbidayaan Mareykanka laakiin waxba iskama bedelin ayuu yiri in hubka nukliyeerka iyo waliba akhlaaqiyadka heshiiska ilaalinta iyadoo la eegayo in hore loo sii wado. Iran ayaa ka mid ah wadamada awoodooda ku tashanaya marka la eego iyadoo Mareykanka aysan u bacbacdigi karin haddana waxay ku goodiyaan haddii Mareykanka uu dhankooda tallaabo u soo qaado in Israa'iil ay duqeyn doonaan oo nukliyeer ay u adeegsan doonaan waana midda markasta ka hor istaagta Mareykanka isagoo ilaalinaya saaxiibtinimada Israa'iil kala dhaxaysa oo loogu goodinayo haddii dhankaas ay u dhaqaaqaan in la weerari doono. dad badan ayaa rumaysan tallaabadaas haddii ay sidaas samayso dawladda Iran in cabsi xoog leh ay soo wajahayso Israa'iil oo markasta ay ku goodiyaan in ay hubka nukliyeerka u adeegsan doonaan dalkaasi oo ay caalamka ka tirtiri doonaan waa Israa'iiliyiinta. qodobka ugu dambeeya Kalsama TV ayaan daawadayaal eegaynaa markana. maleeshiyada kooxda TPLF ee Tigreega ayaa waxa ay dawladda Itoobiya ku eedeysay in ay xirtay madaarka caalamiga ah ee magaalada Maqale caasimadda gobolka Tigray. xisbiga Tigray ee TPLF ayaa waxa ay ku eedeynayaan dawladda ra'iisul wasaare Abiy hogaamiyo in ay madaarka ama garoonka diyaaradaha Maqale ay albaabada isugu dhifatay isla markaana la go'doomiyay dawladda deegaanka ee gobolka Tigray. waxaana mas'uuliyiinta dawladda deegaanka ay ku adkaatay soo dejinta waxyaabaha lagama maarmaanka u ah shaqada garoonka diyaaradaha. maamulka Addis waxay soo saareen bayaan la yaab leh oo ay ka buuxaan beentii caadiga ahayd iyo qalloocinta waxyaabaha dadka lagu marin habaabinayo maskaxiyadooda iyagoo ku eedeeyay xukuumadda Tigray ayay yiraahdeen maamulka TPLF xiritaanka garoonka diyaaradaha Maqale laakiin warkaas waa waxba kama jiraan.
ayaanu leenahay waxaana ka dambaysa arrintan dowladda ra-iisul wasaare abiy oo albaabada isugu dhufatay ayay tiri TPLF war lagu daabacay Sudan Post saxiifada la yiraahdo. hadda waxaa shidaal la'aan soo wajahday garoonka diyaaradaha isla markaana agabkii ugu muhiimsanaa ayaa hadda istaagay ayaa la leeyahay waana midda keentay baa la yiri in garoonka diyaaradaha Maqale uu maalintii saddexaad xiran yahay oo wax duulimaada aanu laga sameyn iyada oo shaqada hakad ay ku jirto ayaa haddana maamulka Addis Ababa waxay isku dayayaan inay ka dhaadhiciyaan beesha caalamka daacadnimadooda fududeynta gargaarka bini'aadanimo waxay sii wadayaan dhaqangelinta mamnuucidda ku dhow soo gelitaanka shidaalka Tigray tallaabo yar oo hore loo qaaday iyo tallaabooyin badan oo gadaal u dhaca ayaa waxa ay yihiin waxa barbar soconaya iyadoo lagu xaniisiibayo maleeshiyada TPLF hogaamiyaha kooxda TPLF-ka Debretsion Gebremichael ayaa sheegay dhawaan in ay marnaba aqbali doonin qorshaha Abiy Ahmed isla markaana uu ku cunaqabateynayo dadka Tigreega iyadoo uu adeegsanayo shaar dawladeed isla markaana uu Oromada ugu lug qabanayo taas oo ay weli inay si dagaalamaan Tigray ay ku goodinayaan dagaalka xukuumadda Addis Ababa ciidankeeda militariga iyo waliba TPLF oo ilaa 2020kii dhamaadkeedii soo bilowday ayaa weli u muuqda mid aanu dhammaan iyada oo maleeshiyaad tiro badan TPLF ay ku weysay dagaalka taasi bedelkeeda ciidamada dawladda Itoobiya qudhooda ayaa waxa ay la kulmeen jab xoog leh inta dagaalkaas ay ka qayb qaadanayeen guud ahaan daawadayaal intaas aynu ku soo gabagabeynayna warka Kalsoome TV intaan wararkan oo kale dib isku arki doonno nabadgelyo.